kooban inaan ka hadlo marka koowaad waan la qabaa mahadcelinta walaalihii iga horeeyay madaxweynaha aan uga mahadcelinaynaa martiqaadkiisa sharafta leh aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay anu waxaan ka bilaabayaa dhalinyarada PDB ee meesha fadhida madaxweyne dhalinyaradan PDB baa la yiraahdaa mararka qaarkood aniga waxaan dhahaa Soomaali inaysan ahayn baan u malaynaa يعني dadkaas sida ay volunteernimada iyo Soomaalinimada iyo sida ay isu haystaan iyo qaabka ay u fakarayaan runtii waa qaab ka horeeya intaan aniga arkay Soomaalidu si u fakarto especially dadka waaweyn Soomaalida inta waaweyn ama politicianska waaweyn iyo qabiilada iyo xataa in fara badan oo kamida dadka intellectualska Soomaalida say u fakaraan iyo dhalinyaradeenu qaabka aniga aan ku arkay muddadii aan dhihi karo 6 sano idin soo wada joognay runtii waxa way aad iyo aad bay uga bedelan yihiin oo dhalinyaro siday u fakaranayaan iyo habkay isugu xiran yihiin iyo siday isu kaalmeeyaan iyo siday u sabraan especially sabirka koobka sabirkay qaadeen marka runtii waxaan leeyahay dhalinyarada aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa waxaan ka bilaabayaa madaxdooda dhammaantood kuwa gudoomiyaasha gobolka noo dhisan yahay gudoomiyaasha degmooyinka noo ah ee PDB iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo dhammaan reer PDB runtii waxaan rabaa hortiina inaan uga mahadceliyo intii aan soo wada joognay soo wada shaqaynaynay sabirkooda iyo wanaagooda iyo qiimahooda runtii wax la ilaawi karo ma ah PDB haddaan wax ka faa'iideystay kuwan aan ka faa'iideystaan haddaan wax ka faa'iideystay intaas markaan halkaas uga tago sida uu sheegay walaalkay dawaayahan hadda ka horna halkan waan isugu nimid in badan oo wajiyadan ka midana way joogeen dad kooban ay ahaayeen laakiin inta kalena waa is wada gaargaarsiinay in PDB ay u socoto inay xisbi noqoto si xisbi u noqotana xisbi siyaasadeed u noqotana inay laga maarmaan tahay in Soomaali waxa way wax lala wadaago sidaa darteed tiimam kale iyo xisbiye kale iyo dad kale oo siyaasiyiin oo Soomaaliyeed ayaan waxa la goostay oo inuu goosanay inaan wax ku darsano muddo marka arintaas ay soo socotay waxa ugu badan oo maqasheen inaan la midoobayno daljir xisbigaas waxaan hubaa in fara badan oo idinka ka mid ah in ama looga sheekeeyay ama lagu yiri waxa way PDB ama dad aan haboonayn bay ku biiraysaa ama PDB malaha de madadan sumcad badan bay baafin sumcad lahayn bay ku biiray waxyaabo fara badan ba sheekooyin badan baa jiray waxaan idin sheegayaa wanaaga markasta oo loo dhaqaaqo wax taakooyin ku yimaada jiro markas waa la iscabsi gelinayaa xataa in la midoobo ayadoo oo la yiri oo aan ogeyn aan isku ogeyn in jamciga inay dadku isku tagaan ay raxmad tahay furqada iyo in la kala tagaana ay cadaabtaan isku weyn haddana dadku labadii isu timaado waxa way magac baa loo bixiyaa wax kala sheegaa Soomaalida dhaqamada soo baxay kamid tahay aniga meel kale waan ka sheegay mar kale waan sheegay annaga iyo daljir inaan isku biirno waxaan samaynaynaa history aan Soomaalida ka dhicin wax sababtuna waxa way Soomaalidu way adag tahay laba qof ama laba team oo loo arkay inay kursi kala qaateen oo cuqdada isu qaadaan oo qoladaas iyagoo kursigoodii fadhiya oo madaxa ayaynu intaan soo campaign garanay waan ka qaadanay soo saas maayn dewa waad ogtiin mucaarad bay noqdeen muddo dheer bayna la soo dirirayeen anyway ayagu iyo wax kala ba gaashadeen haddana kursiga way naga qaadeen Soomaa waa la qaaday meel kale aaday haddana dadkii noocaas ah oo Soomaalidu way ku kala tagtaa oo cuqdada isu qaadaa bal inta isu yimaadeen ay dhaheen war heedha aynu wax isla bilaabanayno saaxiibo noqono wax isku darsano soo nooc civilization oo cusub ma
أنا عصب صومالي واحد يعني وابسيل صومالي إنسان أقولين ولا جاري ويهرت مركوبة مركب لبعض فائدة كجرت عايزين شيء جاية Soomaaliya dhibaatooyinka haysta villa Soomaaliya waxa kamid ahaa intii dawladii hore burburtay iyo wixii ka dambeeyay waxa way maalin kasta koox cusub oo aan dal soo maamulin oo siyaasad ku soo jirin oo meelaha laga galgalo iyo meelaha laga baxbaxo iyo challengeska meesha aan ka warqabin baa villa Soomaaliya tagi jirtay markaas ay soo xijireen koomay gali jireen laba sano koomada ku jiri jireen sanadka saddexaad badii jiray wallahi koomadii waan ka baxnay hadda malaha qiblada waa u soo jeedsan karnaa maalintay rabaan inay qiblada u tukadaan waa la eri jiray waqtigu ka dhamaa jiray sidaas ay baashu ku socon jirtay labadan hadda waa labadu ay sidaas ku soo dhacday oo macallimiin waa weyna meesha haday tagaan ayaga oo dawladnimada yaqaana oo kawaadir leh oo meesha loo socdo yaqaana oo tababar ayna waqti badan uga qaadanaynin bay dalka hogaaminayaan taasna waa faa'iidada ku jirtay kamid sidaa darteed waa inaan ku dhiirano inaan ku biirno oo isku biirno oo kaligood ma kuwa kalena oo fara badan aan ku biirno oo Soomaaliya isu timaado waxaan leenahay xisbigaas ha guuleysto xisbigaas meel fiican buu marayaa waxa sida Sheekh Yusuf Baba sheegay xilliga la rajaynayo in ilaa bisha 30keeda hadii la yiraahdo laakiin waxaan sheegayaa in constitution-kiisa xisbigaas already uu dhameystiran yahay waxa dhameystiran oo hadii la yiraahdo political program-kiisi iyo manifestadiisi in xisbi weyn uu isu diyaariyo waxaan rajaynaynaa in waqti dhow la rajisgareeyo laakiin kongareeskiisa weyn iyo xilliga la qabanayo iyo waa wax weyn in si ku meel gaar ah loo ansixiyo rajaynaa loo rajisgareeyo oo loo diiwaan geliyo laakiin kongareeskiisa ugu horeeyay ee waxaasi waxaan rajaynaynaa inuu xisbiga ka duwan yahay axsaabta kale in ay isugu imaan doonaan dad aad u fara badan in marka loo diyaar garoobo shirweyne weyn iyo xisbigaas iyo Soomaali cusub iyo xisbi cusub iyo aragti cusub aan rajaynaynaa hadii la yiraahdo meeshaas ay maraysaa niyaduna aad u fiican tahay xisbigiina waxa way uu isku taabagashan yahay meel aad u wanaagsan wax la marayaa waxaana taas daliil u ah inuu gudoomiyihii iyo madaxweynihiiba uu imaaday oo soo noqday oo hadda halkaan fadhiyo hawlaha ugu waaweyn ee u joogan ay tahay hawlaha iyo wax la mid ah waxaan hubaa mar walbaba gudoomiyuhu intuu madaxweynaha ahaa iyo intuusan ahaynba markasta qalbigiisa waxa ku yilay PDP xisbiga nabadda iyo horumarka marnaba ka madaalin inuu la kulmo inuu fursad siiyo marnaba ka madaalin waxaan leenahay asagoo safar dheer ku maqnaa muddo dheer markuu yimiday intuusan maalmo kooban jooginba waxuu la kulmay xubnaha xisbiga qaar ka mid ah oo ku soo siyaartay ku soo booqday gurigiisa kulankaana asiga codsaday ayuu ka yimiday asiga wuxuu yiri waxaan rabaa inaan reer PDP aan helno oo aan la kulmo sad la wada socotiinba PDP waxay hadda bariyaan ka shaqeynaysay xisbi weyn oo ururo kale ay axsaab kale ay ku midaysan yihiin in la sameeyo meel fiican ayay maraysaa hawshiisa hadii Ilaahay yiraahdo anoo ka faa'iideysanayo fursadaas oo aan rajo ka qabno 30 bisha hadii Ilaahay yiraahdo in si ku meel gaar ah dastuurkii xisbigaasi la soo akhriyo waxaan rajaynayaa 29 ama 30 halkan ayaan ku qaban doonaa kulan weyn meesha lagu qabto waa la idin soo sheegi doonaa taas marka insha Allah maskaxda ku sii haya waxaan rabaa 12 qofoodba in qof oo kamid ah chapterka dhalinyarada ah iyo garabka haweenkaba 12 qofoodba qof kamid ah inuu telefoonadiisa u qorto si maalintaasi si fudud aan isugu helno hadii Ilaahay yiraahdo taasna waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto maxaa yeelay dadka loo xil saaray inay dadka isu keenaan ayaan anigu kamid ahay intaas kadib mudan madaxweyne iyo mudanayaal reer PDP runtii in badan oo waxaan malaynayaa tibsan tahay ama maqan inay jiraan maxaa yeelay maskaxdaada waxaan aad iyo aad u weynaa dad badan ku yiilay laakiin waxaan aad iyo aad u aaminay hulkan inuu PDP wada deeqi kareynin duruufo jira awgood iyo xaalado jira awgoodna
waxyaabo badan ayay sababtay marka inta aad tabsan tahay waan ogsoonahay in maaragtay mushtaaq ay kamid ahaayeen iyo xamdi xayi iyo gabdho badan ayaa carrada ka maqan iyo rag kale oo fara badan marka insha Allah ayaguna maalintooda inagu soo biiri doonaan imaan doonaan laakiin maanta cudurdaar ayay soo qadimeen in badan oo kamid ah in badanna waxa waaye waysan wada gaarin fariinta waxaan islahaynay lama wada gaarsiin karo meeshina ma wada qaadi karayso marka mudan madaxweyne ku soo dhawow aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa xasuustaada iyo kulankan qiimaha badan haddii ilaa iraado adigaana kaa sugi doona insha Allah marka waxaan leeyahay aniga soo dhaweynteeda halkaas ayaan uga baxayaa xubnaha BDB garabyada haweenka iyo dhalinyarada iyo golaha dhexe dhalinyarada iyo maxal gudoomiyahooda iyo guddiga fulinta inta ka joogto idinkuna waa mahadsantiin Soomaaliya noolaad weyn ah ilaah waaye sheekada maxaan ku iraahdaa BDB maalmihii la bilaabayay iyo dadkii wax ka bilaabay oo gabdho iyo wiilalba leh oo maanta wajiyadooda halkan ay wada fadhiyaan wali waxay ka mid tahay dhaqamada oo hadda laga hadlayo aan loo baranin in inta hay'ad ama institution ama wax la dhiso la sii muxuu ahay jooga meeshaas oo laga sii shaqeeyo ay wixii ay sii noolaadaan oo dadkii shalay xuriyay ay wali horumarkeedii iyo u taageen runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana idinkaga mahadcelinayaa madiina waa mahadsantahay marka berigaas oo xisbi iyo sidoo u yaala ee see loo sameeyaa iyo xisbi dalkan ka mid jiro wariya xisbi yaqaan iyo la islaahayo la isu iimaanayo war magaciisa maxaa la dhahaa see dadkii fadhiyay oo maxaan ku raad doodahaas iyo aaraadaas ka qayb galay oo magaca inoocan inuu noqdo go'aankeeda wax ka gaaray oo maxaan ku yiraahdaa waliba ayadoon dadku aad u isu aqoon hadda waa la isbartay waa la is yaqaanay ayadoo aan la is aqoonin isu yimiday oo meel inta fariistay intaas meel mariyay ka bacdina haddana intaasoo sano haddana sii daba joogay oo sii hayay waxay calaamad cad u tahay yacni commitmentiga ama sida dadkaasi ay dhab uga tahay in dalkani ay u hagaago xisbiyadu muhiimad aad iyo aad u weyn ayay leeyihiin waana la dhihi jiray war dalkan qaanuun xisbina kama jiro sharciye xisbiyana kama jiraan dastuurkiisuna ma dhisna maxay yihiin waxaan aad muxuu ku mashquulaysaan oo waqtiga ka qaaday markii dambana waxay noqotay in la soo wada daba kaco oo xisbiye badan oo kale muxuu ahay la sameeyay oo maxaan ku yiraahdaa dalka oo nolosha yani xisbiyeynta ay soo noolaato runtii qayb aad iyo aad u weyn ayaan ku leeyahay siyaasadda waxa ugu dhibka badan annagana maanta na haysto adduunyaduna ay ka gudubtay waxa waaye waxa la yiraahdo saadaalska predictability berri maxaa soo socda xilliga hadduu dhammaado maxaa dhacayo sidee wax u dhacayaan yani xisbiyadu marka waxay u taagan yihiin waxaasi in ay jiraan yani waxay qayb ka yihiin berri haddii taaramkii la isdoorto u dhammaado ama mid madaxweynaha ha ahaado ama mid baarlamaan ha ahaado ama mid golo deegaan ha ahaado level kasta ha jooga ama mid muxuu dowlad goboleed ha ahaade in waqti uu jiro waqtiga markuu dhammaadana la isdooranayo yaa la dooranaya xisbiyada la dooranaya yaa tartamayo xisbiyaha tartamayo ee 4.5 ma tartamayso dabcan 4.5 ka muddo dheer aan ku soo jirnay markii xisbi iyo maxaan ku raad la yiraahdo dabcan ma aha laakiin haddana tartiib looga sii guuro waa laga sii baxaya haddii shalay ay muxuu ahay 135 oday ay baarlamaankeena soo xuli jirtay oo maalintii ku xigtay 14,000 iyo jajar dad gaaraya ay baarlamaanka soo doorteen ay sanduuq cod u soo rideen berrina waxaan rajaynaynaa 100,000 ama malaayiin dad ah oo Soomaali ah inay sidoo kale xildhibaanka soo doortaan xildhibaankuna waa aasaaska baarlamaanku waa aasaaska dawladnimada yani madaxweyne ma imaan karo golo wasiir ma imaan karaan ra'iisul wasaare ma imaan kariyo muxuu ahay baarlamaanka la'aantii hay'ad sharci ku dhisan oo maxaan ku iraahdaa ma imaan karto marka baarlamaanku mar walba oo aasaaska waa meesha wax laga bilaabo waxa naga maqan oo wali gaarin dawladaha hoose ee deegaanada ayagana sidaas oo kale dadku inay deegaankooda ay isku doortaan oo hebela mas'uul noo noqonaya heblaayana mas'uul noo noqonaysa ay yiraahdaan waa weyn waxaas marka inta ay qabiil iyo waxa ay dugsan yihiin siyaasadeena ma qurux huruwaaytay ahayd waqti aan wax kala jirin
meel kale iyo mitir kale oo la isku cabire aan lahayn 4.5 laakiin maanta alxamdulillah waa ka gudbo haynaa tartiib aan ugu sii gudbinaa xisbiyadu marka muhiimadda ay leeyihiin waa taas asaaska rasmiga ah ee deganaanshaha siyaasadeed meesha ka imaan kara waay yani markii qof walba aniga waxay ila tahay ra'yigiisa ay ka tahay iyo dad urursan oo hal meel ku urursan oo hal ra'yi leh markii la yahay waa la kala duwan marka muhiimadda xisbiga BDB sanooyinkaas uu soo jiray oo dhan oo duruufo ay adkaayeen oo nidaamka xisbiyada iyo shuruucdii iyo wixii iyo qaabkii doorashada iyo wixii aanay muhiimad gaar ah xisbiyadu aanay lahayn dadkeedu iska warqabo oo maxaan ku raadaa mustaqbal fiican hiigsanaya mooyaane waa soo wada jireen ma kala tagin xisbiyo badan oo berigii BDB samaysatay ka bacdi samaysmay oo BDB la shiri jiray oo u imaan jiray oo ay shir wada yeelan jireen maanta ma jiraan qaarkood ma jiraan maba joogaanba soo ma gaarin waqtigii maxaan ku raadayay xisbiyadu ay dhaqaaqi lahayn shaqo gali lahayn oo maanta la joogo nasiib darro wadadii ayay ku soo dhinteen laakiin BDB ayadoo weyn oo xoog badan oo intii hore ka weyn oo ka dad badan ayay maanta joogtaa xisbi kale oo isagana sidoo kale soo noolaaday oo aan dhimanin oo asna sidoo kale dhalinyaradiisa iyo dadkiisa iyo haweenkiisa gabdhihiisa kulli dhammaan ay u kaamilan yihiin ayaan isku nimiday oo wax isku darsanaynaa aan dhahnay oon ku heshiinay sida uu ustaad xamse ka dhawaajinayay waayo aragnimo dowladnimo iyo waayo aragnimo xisbinimaba labadaas xisbi waa ku dhan yihiin oo jiritaan xisbi ahaanna way soo noolaadeenoo ma ayan ku soo dhiman safarkii dheeraayo la soo galo kuma ayan dhiman labada xisbi way nool yihiin waayo aragnimo dowladnimona waa leeyihiin oo marar badan ayaa talada dalka ay cod weyn ku lahayn meel sare ay ka joogeen marka waxaan isleeyahay sida loo noolaado duruufaha adag loogu noolaado laba xisbiyo taqaan sida dowladnimada shalay markii la tagay waayo aragnimada oo wixii khaldamay iyo wixii saxmay iyo wixii laga gaabiyay intaba garanayana way yihiin marka meeshaasi rajada aan ka qabnaa aaday u weyn tahay idinkana inaad soo dhaweyseen oo aad ku faraxdeen oo aad u istaagteen oo aad ka qayb qaadateen muxuu ahaaye isku darsankaasi aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa sharaf iyo karaamo iyo hay'adda maanta marka wacahan iyo imaatankayga waxay ahayd dadkii maadaama aanan hal qof iyo laba qof iyo aanan isu gaari karin inaan dadkii oo dhanna arko idinna mahad celiyo dadaalka iyo adkaysiga iyo mas'uuliyadda gaarka ah oo aad isi saarteen ayadoo dabcan duruufuhu aanay mar walba kuwa fudud aanay ahayn aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinayaa weliba waxaa laga yaabaa dadkeenna qaarkiis kuwii fursada helay in ay iska sii socdeen oo ay ahaayeen muxuu ahaay dadka aad u dadaalay oo maanta meeshaan jooga ama inta lamidka maqan dad weliba ayaguna muxuu noloshoodana dabaranayay oo meel ay ku tirsan yihiin aanay jirin hawshaan midnimada ah oo muxuu ra'yiga caqliga ana muxuu ahaay ku adkaysanayay oo u joogay waaye dadka maanta meeshaan fadhiyo iyo inta ay maalaan oo ka maqan marka waxaan leeyahay hambalyo waa dadaasheen aad iyo aadna waa u mahadsantiin aniga muddo sanadii barahan maqnaa asbaabo badan oo maxaan ku yiraahdaa de macquul ah ayaan ku maqnaa dabcan waa soo noqday wadadii dheereedan soo marnayna gadaal waa u fiirinay oo meeshay muxuu ahay god ku lahayd iyo meeshay muxuu ahay qodax ka tiilay iyo wax badan aan dib u fiirinay meeshii shalay lagu kufay meeshii lagu hantaa turyooday meeshii ayadoo la toosan yahay la qurux badan yahay la maray kulli waa noo kala calaamaysantaa haddii alla yidhaahdo waayo aragnimadaasna cid kasta oo dowladnimada ka shaqaynaysa waa la wadaagaynaa annaga keliya mid noo gaara oon annaga keliya meel ku haysanin ma noqon doonta haddii alla yidhaahdo dadka dhan war meeshaan meeshii shalay nagu jabay waaye ha laga leexdo waan leenahay war waxaan shalay waa shaqeeyeen waa wax shaqayn kara ha la sii xoojiyo ha shaqeeyaanana waa leenahay marka mar kale aad iyo aad ayaan arrintaas idinkaga mahad celinayaa waxaa soo hartay barnaamijkan soo socday mustaqbalka dabcan siyaasaddu mar walba isjiidjiid iyo isriixriixid iyo way leedahay oo dee dimuqraadiyaddaas sida ku salaysan annagu ma ahin koonfurta kuuriya waqooyiga kuuriya oo dadka hal dhinac loo wada jeedini ma ahin dadkan dad dimuqraadi ah haddii rag niman muxuu ah nin karmeedyo ah maalin ay isku dayeen dalkan inay ayaga xoog ku qabsadaan waa ku qabsan waayeen haddii reer cawmadow inta tashadeen annaga reer qurac haddaan nahay waa inaan maxaan ku yidhahdaa qabsanaa dalka ay ku tashadeenna waa qabsan waayeen marka waxaa kaloo soo haray waxay tahay ra'yi iyo siyaasad iyo talo
lagu gaarayo maslaxadda ummadan ciddii soo bandhigto oo la dhihi kara alla ilaahay kuwaana maanta wax maslaxadii ka muuqdo oo waxaad soo bandhigay in la isku raaco waayo maanta waxa la gaaray marka nidaamkaasi waa nidaam dimuqraadiyeed oo wada tashi ah waay xoog ma aha xoog ma aha iscaburin ma aha muxuu ahaay qajajicin ma aha waa nidaam leh tandiim ama institutions ama muxuu ahaay hay-ado dhisan oo qawaaniin leh iyo shuruuc leh oo qawaaniintaas iyo shuruucdaas loo wada hoggaansamaayo la wada ilaalinayo waa maxay marka ugu dambaysaahi micnaha ay leedahay dimuqraadiyaddu sideedaba waxa waaye habka ama nidaamka lagu maareeyo masaalix kala duwan iyo aragtiyo kala duwan dadkani ilaahay abuuray qof lamida ma jirto dadka ilaahay qofba si uu abuuray qofba ilaahay awoodoo siiyey caqligoo siiyey aqoonu meel ay ka gaartooy leedahay qofba si ay tahay dadku marka mar walba ma noqon karaan wax isku siman oo isla eg-ego si siman ma noqon karaan waa la kala ra'yi duwanaanayaa waa la kala masaalix duwanaanayaa masaalix qaran hadday tahay iyo masaalix gobol hadday tahay iyo mid qof hadday tahayba waa la kala marka nidaamka dimuqraadiga ee dowladaha ku salaysan macnaheedu waxay tahay masaalixdaas kala duwan iyo aragtiyadaas kala duwan inaan lagu kala tegin ee laysku haayo laysku maamulo dadkan xisbiga BDB ka tirsan yani dadkaasi ka kooban yihiin waa dareemi karaa dadku isku maslaxada maaha isku aragti maaha laakiin waxaan hubaa laakiin aragtiyooyinka inta badan in laga midaysan yahay laakiin mushkiladda Soomaaliya hadaan qabsato waxay tahay 9 qodob haday taalo 10 qodob haday taalo 9 kamid aan ka midaysanahay oo hal aan ku kala aragti duwanahay kaas aan ku kala aragti duwanahay banaanka keenaynayaan ku hadaaqaynayaan jidka la soo istaagina 9 kala naga dhumay marka inta halkaas ku mashquulsanahay 9 kala tagay waxa muhiimka waxay tahay 9 la isku aragtiyahay in xoog la saaro la maareeyo halka lagu kala duwan yahay ama in dib loo dhigto ama xataa dad loo saarto leeyahay adika halkaas nooga sii shaqeeyay annagu intaanan muxuu ahay yaan sii wadaynay xisbiyadu meesha ay suurtagal ka tahay marka meeshaas waa mar in badan maqashaan xisbiyo maxaan ku iraaday xulafo ah oo isu tagay xisbiyadu xulafo isku tagay wax kasta inay ka midaysan yihiin ma wax kasta inay isku mid ka yihiin ma waxbay ka midaysan yihiin waxaas ay ka midaysan yihiin ay ka wada shaqeynayaan waxa aanay ka midaysnayn dib ay u dhiganayaan ama dad farsamay wax ka soo shaqeey u dirsanayaan ama sidoodaba waa la isku ixtiraama adiga waxaan ka midaysanahay qodobkan waa ku kala duwanahay kanaan ka wada shaqeynaynaa kaan ku kala duwanahay waa isku ixtiraamayna inaad mowqifkaagu inuu sidaa yahay aanu og oo aan muxuu ahay kugu dhibaynin oo mowqifkii hebel waay ama kooxdaas mowqifkeeda waay yaan la waxaynin laakiin aniga waa ka aragti duwanaa mowqifkayga sidaan waay laakiin in la isku diriro la isku dacaadeeyo la isku aflagaadeeyo la isku maxaan ku raadin magaciisaan meesha ku jirin marka waxa muhiimka waxay tahay dulqaadka noocaas waay waxa dawladuhu ay ku dhisan yihiin oo kumanaan iyo boqolaal sano ay ku jiraan xisbiyo ayaa adduunka jira boqolaal sano soo joogay muddo hore aad u fog xisbi noqday soo joogay macnaheedu maaha maalintay sameysmeen duruufihii jiray maanta uma jiraan laakiin xisbiyadu waa inay mar walba waqtiga la jaan qaadayaan baahida jirtay la jaan qaadayaan qataraha jiray muxuu la jaan qaadayaan masaalixda iyo wanaagga jir mar walba inay isii cusboonaysaa BDB oo 2012 joogta maanta BDB 2018 joogta waa ka duwan tahay yani asaaskii iyo mabaadidii guud waa ka midaysanahay waxba iska ma bedelaan kuwaas waa asaaska hore iyo mabaadida badankeed laakiin farsamooyinkii wax duruufiya isbedelay waqtiga isbedelay muxuu ahay wixii oo muxuu la raadinayay iyo qaabaalkii lagu raadinayay isbedelay wax badan oo casri ah afkaar badan dad cusub ku soo biiray waayo aragnimo cusub iyo aqli badan waxba soo wada kordhay kulli waxaasaan marka la jaan qaadi doona hadii la yiraahdo dhalinyaro mar walbana waa dhihi jireen waxaan rabaa inaan ku celiyo dalkan waxa meesha ka saari kara iyo duruufaha gaarka uu ku jiro waa dhalinyaro gabar iyo wiil sida ay u leeyihiin waxa inay u istaagaan la rabo waa dhalinyaro marka ay dhibaatada iyo duruufaha adag iyo burburka dawladnimadu ay dhacaan dad badani wixii laga faani jiray ayay ku faanaan wixii laga faani jiray ayay dad badan ku faanaan runtii in badan oo adikeeda kamid ah aad iyo aad ay u daayiriyeen waa laga yaabaa inaan aad u xasuusanin laakiin wax badan oo maanta ku faano shalay markaan dawladda ahayn oo weynayn oo maxaan ku iraadaay adduunka muxuu ahay
nalaga baqayo nala fiirinayay wixii aan ka xishoon jirnay ama aan diidanayn yaa maanta laga yaabaa inaan ku hadaaqayno kor u qaadayno qabiilka ka mid ahay waa laga xishoon jiray haddii dee tacsi ay jirto iyo haddii qaaraan jiro iyo reerku meel isugu tagayo hoos hadday jirto waa guun laakiin jidka in lala soo istaago waa laga xishoon jiray maantana asaga yaa muxuu ahay tabeelaha wejiga noogu dheganba muxuu ahay waa isagii oo waa sheegaynaayo muxuu ahay ka gaabin mayno marka duruufaha keenay yani maaha inay dadkii waa xumaadeen maaha laakiin duruufaha keenay inay sidaa wax noqdaan duruufahaas marka yaa ka bixi kara idinkaa ka bixi kartiin dhammaantiin jaamiciyiinaad tihiin aqoon-yahanaad tihiin dib markaa u xisaabtantid nin walbo gadaal inta u fariisatid meeqaa inaad masters degree inaad qaadatid maxaa contribution oo qabiilkaaga ku lahay isweydii inaad maxaan ku idhahdaa darajo yeelatood meel tagtood maxaa ku lahay weydii malayn maayo wax badan inuu ku lahay haddana waxau noqotay reality taallo marka waxaan rabnaa dowladnimo waxaa asal u ah dowlad fursadda ma marka qaarkood qofku waxaanu arkin si loo fasiro ama loogu macnay way dhib badan tahay laakiin dhammaantiin dhallinyaradiina meesha joogta maanta waxaa wax ku soo barateen jeebka hooyo iyo aabbo $10 iskuulka hala bixiyo elementaarka iyo intermediate jaamacadda haddii la gaaray $100 hala bixiyo iyo wax lamida iyo dadka aniga iyo jiilkayga ah laakiin waxaan wax ku soo baranay waxba reerkeennu qada iyo quraac iyo casho guriga in laga siiyo iyo notebook iyo qalinka wax lagu qorayo in loo iibiyo waxa nooga baxay intaasay ahayd ilaa masters degree iyo PhD laga qaato reerkeenna intaasaa nooga baxay lacagna lama weydiin jirin iskuulkiya fiiga la iska rabaa bisha keena nalama dhihi jirin sanad dugsiyeedka registrationka la iska rabaa nalama dhihi jirin mararka qaarkoodna meel mugaan soo gaarno jaamacadda soo gaarnana lacagaana la siin jiraba dowladda aan lacagna siin jirtay lacag pocket money waa la yiraahdo sariir laba gooc cadcad ay ku goglan yihiin iyo barkin cad armaajo maxaan ku idhahdaa qada iyo quraac iyo casho miiska iyadoo saarantaa intaa u tagtid aad cuntid aad saxanka miiskiisa uga soo tegaysid maxaan ku idhahdaa markuu bilaabanayo semesterka oo 6 maado ama 7 maado la qaadanayo 6deeda buug ama 7deeda buug oo cusub miiska lagu soo saarayo yani waxaasi dowladda ka suuro maanta hooyo aabba la harjadayo fiiga bixi tax buugaal rabaa soo gad muxuu ahaay wax walba maanta يعني ما هدتك وهدتك دلكن وهدلك لكن محاوسة دولة الآن النجوى مركب وح واجب كنوعه أو آد واجب يعني الدين دتك إن دولة دي موصونته دولة الآن توحنوجها الله لما ترنكروا وحنكوينا لما ترنكروا مركب إن أن إسبربر دقنا مصلحة دولة دي ما إن لحاله هي مصلحتها كلا أجرة إن لإسبربر دقوا لقيمة وبين مصلحة لهلي كرانا مجرته هدان كوكر عن ملأ كسودين ما أنت ماشي أنا جوبته لكن ما قبل يلاقوا إن التكتير لقى ربي أما عضو بعد جعلان لهذا جرته إن أنت جوبتت وحد أصورتي كو يوجا صار ما أصورت بابورا صار عدد بس جاب كاو كجرا صار بحس مصلحة كستي مراد كستي ولا جاريو كوكر على صهورة يا ولا جسوا تريا ضلك إنه الدولة ديشوا إنه وحول بقول نوعي عصر الشيخ معها جامع معها على السوق معها رير هبل معها رير معها صوماليا واي تاس بس عن كرامة كلنا هاي تاس بس عن معنى كلنا ماشي هو الرئيسنا وماشان إن الحزب النهاي أركت السياسات قبله أجندة السياسات قبله بري حزب جانب برلمان كل حد بعنا كويه لنا أنا جو حي إلتها معه أنت سو شران وحزب سوق تجانا ضدك كانوا حزب قال سو شران وحنا جلسنا لقي لا إنسان أنت أنا نقوم تشيل ماشى لا تجا أيوة صعدوا هالعضلة لقى يا أبي شن حلم إنيين لقى يا أبي بقول حلم إنيين لقى يا أبي كبد إنيين لكن هالعضلة رأي كان ساسا أنا كنيري وهذا ما يوم حوها أنا جو حي إلتها هيدا ما أنت صعدوا كلا ظروفه أي كانن برلمان كان لو بقول طواتن الشن أنا هدي الله يقدر الله بقول تواتن اللح محاوة هاي وحال لقي يا ما أنت إنه الله بقول تواتن شن حزبين وتاجية وح يعني ضد أن صاحبه وسط الشغل يجري كران وين الجيران لكن ساس وديها لكن بري وحال لقي يا با لبا حزب سد حزب أفر حزب شن
tira yaroo xisbiya inuu ka kooban yahay leeskuma daahinba meesha aan 50 qofood mise 60 qofood dhowr maalmood ay hadlayso waxaa laga yaabaa 2 qofood 3 qofood in hadashay tira annaga xisbiga saas hadaan nahay ra'yigaasaan ka qabnaa kaasaan qabnaa ha loo codeeyaa diliiraan ay kulligood gacanta u wada taagaan hal la diidaa diliya ka laga codeeyaa ay ka codeeyaan hawsha xataa waa sahlanaanay isqabo marka siyaasaddu sidaasay saadaalin birri waxa dhacay waa la ogyahay birri waxa dhacay waa la ogyahay qiyaasa imaan doono haddii waqtigu dhammaadeen cod la aadee la tartamo waa la yaqaanaa xisbi hebel ama majority helaya ama kuraasta ugu badan helaya waa la sii yaqaana waa la sii saadaalina waxaan ilaahay ka rajaynaa aanan aad ugu kalsoonahay xisbiga dadkan ay ka tirsan yihiin mar walba inuu noqon doono midka maxaan ku rahaa ugu cod badan maxaan ku rahaa baarlamaanka dhexdiisa cod ku leh oo taladiisa meesha ay ka socoto oo dadkan rabitaankooda iyo ra'yigooda qurxoon ee dawladnimada ku aadan ee dhinac walba leh meeshaas in maxaa awoodii marsiinaysa ay noqoto qoray ma aha xabad ma aha madfac ma aha ra'yi qaanuun ku salaysan oo talo leh waay marka ilaahay idinkiisaas isaas ayaan aad u rajaynaynaa annaga marka waxaan rabaa dadkeena saaxiibada aan nahay ee ama BDB ka tirsan ama saaxiibada la ah ee baarlamaanka ku jira waxay badanaa ku mashquulsan yihiin kuna soo mashquulsanaan jireen runtii maanta waa la joogaaye birri qurxoon sidii loo heli lahaa waxa birri sii qurxinaya dalka waxa birri sii qurxinaya dawladnimada in lagu xooga la saaro waxa dawladnimada qarribaya ee ku dheelaya ee waxaynaya ama mid tala hadda haay ha noqdo ama mid aan talada hayn ha noqdee na in la celiyo la yiraahdo maya waxaan dawladnimada dib u yihiin hore ayaa loo soo arkay ama madaxda in la xisaabtamo la yiraahdo 1 2 3 ballan qaaday aawe maxay u imaan weyday haye wixii dadku lahay xagee ka baxeen maxaa intay aadeen maxaa lagu qabtay la xisaabtankaasi waa waxay horta xildhibaanadu mar walba u taagan yihiin kuwa annaga tirsan iyo kuwa saaxiibadan lahayn runtii kuma ceebaysna arrintaas magac weyn ku waa laga yaabaa dadka qaarkiis maalin walba maxaa loo qoraa maalin walba waxa loo qaylinaa danta meesha gashay haddii wax walba toosiyiin dadkan ma hadli lahayn laakiin wax meel ka laaban wax meel ka dhiman wax in la toosiyo u baahan wax ra'yi in lagu daro si ay hor u socdaan u baahan dadku u istaageen waana hadlayaan marka ma aha muxuu ahaay waana midda aan sheegay haddaad ahayday aaraa kala duwan iyo masaalix kala duwan sidee la isugu maareeyaa saasay siyaasaddu ka shaqaysaa sideedaba markaad aaraada kala duwan diidid oo masaalixda kala duwan aad qaarna diidid qaarna aad qaadid haddee marka ma noqon kartid dimuqraadiyad iyo dowladnimo iyo nidaam casri iyo ma ku fikiri kartid laakiin waxaa la rabaa haddaadan wada yeeli karin xataa dadku inay ku dhihi karaan xasha wallaahi waa dadaalin intaan hadday sameeyeen oo intaan ay ka gaabiyeen waa loo qaateen waxaas waa la aqbali karaa in la yiraahdo marka annagu meeshaas marka dawladnimadaas marka xagee ka bilaabataa xisbigeena dhexdiisa ka bilaabanay maanta maadaama qawaaniintii xisbiyada ay jiraan oo nidaamkii doorashooyinka uu socdo oo maxaan ku raay qawaaniintiisa dhawaan inay soo dhaqan gasho aan rajaynayno oo dastuurka dib u eegistiisa ay socoto oo aan rajaynayno ayadana mar dhow inay soo dhammaato waxaana laga rabaa marka annaga waxay tahay in waxaa la dhihi jiray muxuu ahaay meel hebel corona meel hebelna corona dhul laysla cabire ninkii dadka xisbi inay ahaadaan corona oo xisbigooda oo gudihiisa ay dimuqraadiyad ka jirto oo dadku ay garanayaan xisbiga gudihiisa sida go'aanada loo gaarayo sida dadka xisbiga matalayo meelaha qaarkood ku matalayo sida loo dooranayo yaa xildhibaan u noqonayo xisbigan oo federaal ah yaa xildhibaan u noqonayo heer dowlad goboleed dowladaha hoose yaa xisbigan ugu jira sidee dadkaas ku imaanayaan intaan la gaarin ma la sii og yahay qawaaniin iyo nidaam lagu ballamay oo la isla ogolaaday meel ma ka yaaliin waxaana laga rabay inaan dhaqan gelino waxaas waaye xisbigeena dhexdiisa markii dimuqraadiyad ay ka jirto oo dadku ay garanayaan sida danahooda loo maamulayo iyo qawaaniinta lagu maamulayo iyo go'aanada sida loo gaarayo iyo meesha laga gaarayo markaas ayaa hadhow haddii aan dowladda mas'uuliyad ka qaadana meeshaan ka soo bixi karnaa oo qaanuun ku salaysan dabcan annaga BDB waa soo jirnay laakiin de qaanuun kalifayo xisbiga codkiisa in meel walba dowladnimada dhexdeeda uu ka istaaga ma jirin laakiin maanta fursadaasaa soo muuqato xisbigan codkiisa iyo taladiisa iyo ra'yigiisa inay meel tegi karaan
marka inaan lagu dhihin war kuwan ayagaa is haysto maalin walba buuq iskula jiro oo maalin walba wax ridayo oo wax saarayo oo isdaba gidinayo badeganayn maxaa inaan la dhigi karnaa naga raba xisbiga cusub ee sutaga ka soo baxaya waa xisbi aan rabno inuu lahaado muwasafaadkaas dimuqraadiyadda dhexdiisa inay cadda go'aanka sida loo gaarayo cidda gaarayso sida loo soo wakiishay ay ku soo baxday waxa cusub ee kale imaanaya siyaasadaha cusub dadka xisbiga ku matalayo sida ay ugu matalayaan sida ay u tagayaan sidaasina si kastoo isku raacno isla ogolaano waa sida wanaagsan wixii la isku raacsan yahay mar walba waa wax wanaagsan laakiin wixii lagu kala daadsan yahay la isku haysto wax wanaagsan waxa la yiraahdaa wixii la isku ogaa haday xumaan keenaan eed ma keenaan ceeb ma keenaan haday ceeb keenaan eed ma keenaan haddii wixii sidii la rabo wixii la isku ogaay sidii la rabo haday noqon waayeen xataa ma la isku ma eedaayo adaan noolahay lama dhahayo laana shalayaan intaan ka wada hadalnaan ku ballana wadadaas aan marno wadadii biri waa qaayb waaye qiyaas iyo muxuu ahay saadaalin waaye sidii la rabo haday noqon weydo marka waa laakiin anagu aan ka tashay waa la isku baraacay laakiin haddii si aan la isla ogeyn dadka qaarkiis inta dadaalada ismeesha iska mareen ay wixii xumaadeen eedaa ka imaanay waa la isku eedaa biri isku maanan ogeyn sidaan taladan nimankaan loo lahay gabdhahana meeshaas ku tashada warkaan muxuu ah inta ka qalluuciyay istuhumkaas ka imaanay marka ilaahay idankiis marka dadkoo dhan mar walba inay inta isku yimaadeen tala kastoo jirta inta la isdhaxdhiga laga tashadana suurtagal ma aha oo practically suurtagal u yahay laakiin hierarchy-ga mustawayaasha kala duwan ee hoggaanka xisbiga u sameeyay yahay yaa mid walba shaqo mucayan ah leedahay oo laga rabaa inay ayada soo go'aamiso laguna aaminay oo loo dhiibay golaha guud ee maxaan ku raadaay ama shirka guud ee maxaan ku raad xisbiga waxba uu leeyahay oo inuu go'aamiyo laga rabo oo lala sugayo ma waxaan lama go'aamin karo meeshaas go'aankeeda la leeyahay laga dhahay golaha dhexe waxba uu leeyahay oo aanan la go'aamin karin golaha dhexe ee fasaxu ku jira waa la sugaa markay yimaadina qadiyadan la hordhiga ama si ku meel gaar ah loo sii ansixiyay laakiin si kama dambaysa meeshaas loogu ansixina guddiga fulinta shaqo uu leeyahay gudoomiyuhu shaqo uu leeyahay xogayaha guud shaqo uu leeyahay wax walba marka meeshaas waa la og yahay meesha lagu go'aaminay sida madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga sida u shaqeeyana waa la garanaya waajibaadkiisa iyo TOR-kiisa waa cad yihiin qof walba waajibaadkeeda iyo waa cad yihiin iyo awoodaheeda haddaan marka dhaqan gelino oo aanan ku xadgudbin haddana laguma xad buu gudbi kara laana xisbiga hadduu qalad sameeyo xisbiga dhexdiisa la isku dacweynayaa haddii xisbiga dhexdiisa uu dhaqan geliyo dacwada ay ka socowaysana meel kale loo dacwoodo leeyahay marka ma aha xaajadu sidii hore oo la iska soconayay oo maxaan ku raaa ma ilaahay idankiis kuwa laakiin meeshaas isla gaaro oo dacwadooda lagu soo baxo ilaahay nagama dhiga haddii aad yiraahdo mana rajaynayno inaan noqon doono haddii aad yiraahdo mar kale aadaa u mahadsantihiin kulankeenna maanta muddo maadaama aan kala maqneen is arkid iyo salaamadii ismarxabeen u badnaa kulamadii shaqada way soo socdaan waana imaan doonaan haddii alla yiraahdo ha loo diyaar garoobo shaqadaas weyn oo soo socota waqtigu aad u yar yahay teeramka hadda doorashooyinka waxa la filayo 2 sano iyo bar ka dhiman 2 sano iyo bar hayaanka siyaasadda waqti aad u gaaban waa gaaban yahay waqti aad u gaaban oo xadidan marka 2 sano bar dhamaaba dhimanay waqtiga maasaa koo joogo yaan la dhihin qof walba fikirkiisa iyo taladiisa waana maxay fikirka iyo talada saxda xisbigaan inuu ballaarto inuu dalkoo dhan gaaro meel walba calankiisa iyo tabeelihiisa iyo xafiiskiisa inuu ka jiro laana asaas hadaan yeeli weyno laba waxyaabood ka dhalanayso mar horta qaanuunka xadidayo rababa xisbi kasta inuu meelo muayana iyo tiro muayana dhulka Soomaaliya inuu ka jiro qaanuunka la tilmaamayo xisbigaan intaas ka jiri karin xisbi ma aha in la yiraaho ay u badanta waa koow hadda xisbiyaan nahay markaan niri waxaan u istaagnay doorasho iyo cod inaan helno codki iyo doorashadiina hal guri iyo hal hotel kuma wada xiriirsanay jamhuuriyadda dhan ay ku baahsan yihiin laa yacad ka soo bilaaw ilaa raas casayr iyo raas Gamboni waxa waaye dadka Soomaaliyeed ku baahsan يا حزب كان عد كربا هل قبل كمان ربو هل دولة قبلت كمان ربو هل دقمة كمان ربو جمهورية دا سلطان وكربا إنه عد كهرب قول يا حزب كان يا حزب سول أوجه ليا حزب كان حزب حسن الشيخ واي بوجه لاي
laakiin deegaan kasta qof la yaqaano oo magac ku leh oo ixtiraam ku leh oo dadkiisu ay u soo istaagayaan inuu hor joogaa la rabaa oo yiraahdo haye xisbigeenna waaye codka aan siino laakiin ninka bakool salkeeda dambe iyo jubbada hoos salkeeda dambe iyo bari geeska u dambeeya iyo jooga waxa laga yaabaa xasan sheekh inuuna aqoonin dadkan inta fadhiya in badan oo kamid inuuna aqoonin laakiin midka la jooga meesha uu joogo ku nool yahay oo bulsho kastoo meel degan dadaa jira muxtarimiin ah warkooda la dhageysto loo istaago waxa ay wadaan mar walba annaga waxaana laga rabaa dadka noocaas meel kastoo jamhuuriyadda ka joogaan inaan intaan baadi goobno raadino xisbiga ku soo darno kadibna mas'uuliyadda xisbiga ee deegaankiisa aan weliba aan muxuu ahay wax uga dhiibno dhahno waa kaa adaa meesha wakiilka ah xisbiga adaa wakiilka ah adaa madaxa intaas marka kuma filna ninkaasi ama gabadhaas meel kastoo joogto waa inay leedahay deegaankeeda bas deegaankeeda inay maamushay leedahay iyo xisbiga taladiisa laakiin xisbiga guudna talay ku leedahay ma aha inta xamar joogta ayaa xisbiga headquarterka ee meesha u dhawaa xisbiga go'aankiisa gaarisay dadyowgaas ayaa la rabaa inay go'aamada qaarkood waxyaabaha dee iska maamulka routiinka caadiga ah dadkii de markaas uun xisbiga ama shaqaale ahaan ka ah ama madaxdiisa markaa mas-uuliyaddu la dhahaa laakiin go'aanada qaar xisbiga shirweynihi xisbigaa jira haddii la yidhaha inta xamar joogta maa shirayso macquul ma shiri karto jamhuuriyadda oo dhan waa in la isaga yimaada dadka soomaalida tirada badan ee qurbaha jira waa inay yimaadaan waa in marka fursad la helaa shirka weyn oo guud oo ugu weyn midka hadda soddonka la sheegaya ma ahan laakiin mid waxaa jira weyn oo aad u ballaaran oo aan rabno dad muxuu ahay tirada ugu badan ee suurtagalka ah inay isku timaado kaasna bilo kadib ayuu dhici doonaaye midkan hadda la samaynayo oo registrationkii processkiisii iyo wixii si loo sii dedejiyey iyo wax lamida ayaa hadda kan loo qabanaya laakiin inta xamar joogto iyo in lamida ayaana qaban doonta laakiin kan weyn oo ballansan oo sanadka cusub horaantiisa dhici doona waa mid jamhuuriyadoo dhan in la isaga yimaado aan rabno inta ka horeysana waa waqtiga waxaan sanadka muxuu cusub bilowgiisa u leenahayna waxay tahay bilaha soo socdoo dhan inaan ku mashquulno fariinta xisbiga sidii loo fogeyn lahaa meel fog loo gaarsiin lahaa safarro la aado dad loo yeero xamar loogu yeero fariinta maxaan ku dhahay xisbiga meel walba inay gaarto waayo dadka fariintaas xisbiga meel walba gaarsiin karana intiinaanaa kowka ah ka hor dad kale uma maqna dad kale oo waaweyn oo meel fadhiyo oo muxuu ah waxbay ay qaadi karaan ayaga la leeyahay oo xisbiga cusub ee dhalan doona maqla intaan iyo inta la midka ah waaye inta fariinta inay qaado la rabo inta xoogga leh inta caqligoodu degan yahay inta fursadaha leh inta firfircoonida ay ku dambaysa intiinaan waay dad badan oo dadka waaweyn oo kor loo soo fiirinaya waxaa laga yaabaaba inayba dhaqdhaqaaqi karaan xamarba inayna ka bixi karnaa laga yaabaa ama xamar xaafidiisa xataa qaarkood inaanay tegi karnaa laga yaabaa laakiin dadkan meesha fadhiya ee dad kaloo badan oo ayaga lamid oo maanta aan imaanin xamar xaafidiisa kala duwan ay tegi karaan dalka deegaanadiisa kala duwan iyo muxuu ahay magaalooyinkiisa ay tegi karaan xoogga meesha uu jirana meeshaas waaye xoogga meesha uu jiro meeshaas waaye kuwa aan dhaqaaqi karin ee meelaha fogfog aan gaari karin waxaa laga yaabaa ayaguna meel kale ku fiican yihiin meesha kale ku fiican yihiin ayaguna aan u adeegsan doonaa qofka bini aadamka qof maala yacni ma jiro qof kasta meel uu ku fiican yahay bas haddii aan garan weyno qofkaan meesha uu ku fiicnaay waa dee ducfi annaga naga imaanayo annaga aan leenahay waay laakiin qofka bini aadamka qof walba meel uu ku fiican yahay qof oon waxba taraynin waxbana ku fiicnayn ma jiro bas adiga inaad fahamtid qofkan hawshaan ma qabo waay alla ilaa tan kuma fiicnaa bal fahamtuu ku fiican yahay ee tiraawniya adiga baan dhinaca naga qabatid ama gabarya ma dhinaca naga qabatid in la yiraahdo markaas u baahan tahay insha Allah tacaala waxaa noo ballan ah kulamo shaqo oo badan oo dambe oo soo socdaan isugu imaan doono annagoo wada jirnay annagoo koox intaba iyo hawshaas inaan u sii dhaaraamano oo aan u diyaar garowno in maxaan ku iraahdaye fariintaas xisbiga aan xambaari doono oo jamhuuriyadda afarteeda gees inaan geynana laga rabo annaan muujino meel ama ka muuqo ama ka maqnaa baa la yidhi xisbiga hebel la yiraahaan nahay haddaan dhahno jidka la soo istaagno waa inaan ka muuqo xisbiga waa jabiyey waa laga guulaystay waa dhacyay waxba noo tari mayso inaan ka muuqanaana laga rabaa dadka dhexdiisa la yiraahaa oo biri lagu faani karo qof walba lagu dhihi karo bal xisbiga lagu daro midkii maanta waxa laga mid inuu ka cudur daato wallahi ma aniga muxuu ahay ma gali karo waxaas xisbiyada iyo maanta inuu kira laakiin la hubo hadaa guulaysatid
guusha 12 aabbay leedahay la yiraahdo iyo 12 hooyo laakiin guuldarada waxba leen hooyo mala aabbana male haddaad guulaysatid kuwa maanta ka cudur daaran doono oo baqaar badan inay ka cudur daaran doonaan ayagoo socdo albaabka kow xisbigi miyaa halay qoro halay ugu daro igala hadal مدينة ما سنتها أساس واي يعني هل يجي مش الاسكر ريجستر جرينا يجي يوم حوا هاي أيضا الوضع جاري مركا لبضة أنا أتكلم دورتون ويا كل سنة كده ولا رايح إن الويرة أنا دورت قف كاس كلا الرادينا اللي أما قبرها يجي مش على الإساق قريب محوا هاي حزب يجي محوا هاي لو حيه يقدر هل يجي مش إن لبضة سان كلا دورنا إن هدي اللي راه qofka bini aadana taa waa nooshahay ilaaha irsaaqadaada ilaaha kafaala qaaday waxaad helaysaa wixii kale laakiin dadku karaamay u noolyihiin karaamo heybad sharaf yaa loo noolyahay heybadda iyo karaamada iyo sharafta waxaa ka mid ah noolaamaysid weligaa laakiin maalin inaad taariikhda lagu qoro la yidhaaho xisbigaas guulaystay oo dalka wanaaggaas u horseeday dadkii aasaasay oo ka mid ahay beri hebel joogay hebel iyo heblaayaa ka mid ahay in lagu yidhaahdo maanta waxaa meel walba aan ku dhegsanaa oo meel walba noogu dhegin Soomaha 13 dhalinyarada ahay oo SYL xisbiyadii faraha badnaay oo reer hebel ahay iyo kuwii ka dambeeyo SSyada watay oo dagaaladii sokeeyay dhexdiisa sameysmay iyo qof laga xusay miyaa jirta maanta qof laga xusay ma jirto laakiin 70 sano ka hor dhalinyaradii ahayday wali waa la sheegay magacyadoodii ayagoo dhalinyaro sawiradoodii waa haddana inuu qof ka nool yahay u malayn maayo والله حسا والله شيء يعني والله يقانا كوو قبيل ما أهين كوو رير ما أهين كوو دجان ما أهين وأنا تقانا محاو تقانا مالين تاس وحي أو صومالي أو قبتي وحي وجورجيس كقبصدي وحي بيرتيس أو قبتي وحي جناعسيس أو قبت ما أهين وحكو تقانا مالين صوماليا أي باهنيت أو عرير أي كجرتي أو جميس أي كجرتي أي أو استاجي نفتي سؤوري ولا ديلي كري ولا سمي كري قاركود ولا ديلي ولا سمي ياللي يرادا ما أنت سوء استاج مع القبائل ما أهين جامعيين أو ماسترز ديجري PhD هاي استماع أهين يعني إذا الشعب يوم أراد الحياة وحي كذب به وقرنسان مواصفات كاس كذب به مالين أياد قوان أي جارين دليراس نولان أباهنا كراما أباهنا حرية أباهنا دولة أباهنا وحاس وين ودن برايس كام قيمة أي لهذا نوي بحيان maanta Soomaaliya meelihii email u dhaway joogtaa xorniman u baahanay xor ma ahin wali dawladniman u baahanay dawladnimadeena ma dhameystirna wali karaamo iyo sharaf adduunka qeyrkeen aan la lahanan u leenahay oo aan maanta ku lahayn magaca dawladnimada adiga karaamo ku leedahay baasaboorkaaga bangiyadaada maxaan ku iraahdaa safaaradahaaga calankaaga waxaad karaamo ku leedahay waa intaas marka baasaboorkaaga fiiso lagu dhufo karo lagu yiraahdo oo dalhebel lagu ma ogolaan ana waa maxaan lagu ogolaan cali iyo jaamac iyo maryan caasho ceeb iyo dambi ay galaan maxaan lagu ogolaan Soomaaliya ka timid daradeed ayaa lagu ogolaan marka ceebtaas aan iska ridno generationska ama muxuu ahaa jiilasha soo socda ee ilmaheena aan ka ridno berri oo intaan meeshaan gaarin aabayaasheen maxay ahaayeen kuwii burburka dawladnimada jooga ee dawladnimada soo celi waayay maxay ahayd yaa nala dhihine ilmaheenu hana ma hadiyaano hay yiraahdaan aabayaasheen iyo awooyaasheen maalintay dhibka Soomaaliya gasho kuwii ka soo saaray waay heybadaas iyo magacaas la idinka malaha maanta fursadeedaad haysatiin hadda adiga iska dayacdaan waa gooni laakiin magaceedii iyo muxuu ahay maqaamkeedii iyo fursadeedii waa jirtaa maantay taagan tahay بريء تاجنته إن لو استاج بس التوالو دبتونا والو نعا والو ولد دردا ما يبي أنا قطر وقشيد أو محام كورا هذا نفط هذا قطر وقش واسوق تقل لكن هي أول با هذا لمت هذا أودمت أول با ما أنت اسمه دافع لهين والله يا سببتي حزب جالس وكتر سنة أول ضد بدن المقلة ولا ليه دور شو إنك أضيال كأهين أضيال شيء أهين والد دلي هذا الدور شيء آدي لهين حتى وقت ما لهاي ما أنت اسمه دافع لهين يا
doorashadii daraaddeeda loo dilay in kada kana laga dhacay haddoonu doorasho aadi lahayn gurigiisa jiifi lahaa xataa maalintaas uu dhima lahaa ma dhaafi lahayn ya laakiin dee sababtii aad sida noqotay marka sababtu waa laga yaabaa asbaabtu wax kastay noqon kartaa laakiin maalintaad lahayd ma dhaafaysid maalintaasaa ku sugayso maalintaas adoo karaamo leh adoo sharaf leh oo haddaa dhimatay kabacdi lagu xusaayo wax lagugu xusuusta ka tegey oo aan ahayn guriga muxuu ahay cariishka aad ilmaha uga tagtay iyo maxaanku idhahdaa dukaanka yarka ee meel hebel ku yiile aad uga tagtay aan ahayn oo Soomaaliya oo dhan ay arkayso laana guriga diriska arkay wallahi gurigan ilmahan aabooda ugu dhintay diriska inta la ahdayso dukaanka yarka aad lahayn wallahi baqarkan nin oo zaciima joogi jir maanta waa ka maqan yahay intii ka adeega jirta ahdayso laakiin inay Soomaaliya oo dhan ay tiraado ninkan waxba nooga tagay ama gabadhaan waxbay nooga tagtay alla ilaahay sababteen iyo wanaageena u dhimatay wax weyn waay marka aad iyo aad ayaad markale u mahadsantihiin dhalinyaro waxaan idin rajaynayaa guul iyo khayr waana guuleysanaynaa ilaahay idinkiis niyadsan oo Soomaaliya jecel oo maxaan ku raad dadnimadeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda jecel ayaan isku keensanay oo aan ku wada soconnaa ilaahayna wuuna aqbalayaa ducadeena iyo dadaalkeena uu aqbalayaa insha Allah laana niyad fiican aan wadanaa oo ku soconnaa dulmi uma soconno isku maanaan bahaysan inaan dad dulmino inaan dad dilno inaan dad xumayno waxaan isku bahaysanay Soomaaliya qurux badan oo jiilasha soo socda ay ku naaloodaan inaan keenno ilaahay idinkiis waana keenaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh